dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum. Nolosha bini'aadamka waa mid isbedelaysa maalinba maalinta ka dambaysa. Taasina waa sida ay adduunyadan maanta u socoto. Shalay waxaad ahayd qof ummiya oo aan waxba qorin waxna akhrin. Maantayna waxaad tahay qof awooda inuu wax akhriyo waxna qoro, dadna wax baro. Taasi waa sida ay nolosha dunidan u socoto. Cilmi baarisyo badan oo la sameeyey waxaa lagu caddeeyey in dadka badankood ee nolosha ka dhacay ay hogaaminayaan 5 caado. Haddaba waxaan nagala rabaa haddii aan doonayno inaan nolosheenna ku guulaysanno oo aan ka gaarno heer sare inaan nolosheenna ka dhiliid garayno 5 caado. Haddaba su'aasha ayaa waxay tahay maxay yihiin 5 astaamood oo aan iska ilaalinayno si aan nolosheenna horumar uga gaarno? Qodobka koobaad, waqtigaagii hore ee la soo dhaafay. 2, fikradaha dadka kale iyo xukumadooda. 3, inay ku xadidaan waxaad adigu personality ahaan u aaminsan tahay. 4, xiriir aad soo martay wuxuu raba ha ahaado. 5, lacagta, the money. 5 qodob ee aan soo sheegnay hadday noloshaada xukumaan kuuna hogaaminayaan dhankay rabaan, noloshaada waa u dhammaatay. Haddii aan soo qaadanno qodobka koobaad, waqtigaagii la soo dhaafay, ha u ogolaanin waqtigaagii hore, noloshaadii hore ee aad soo martay inay xukunto waqtigaaga hadda iyo mustaqbalkaaga soo socdo. Wax walboo dhacay waxay ahaayeen wax qoran. Waa inaad ka tagtaa waqtigaaga hore xanuunka ka dambeeyo. Waxaasi way dhaceen mana soo laabanayaan. Waqtigaaga hore waxa kugu dhacay ma burburinayaan waxa dhacaya mustaqbalkaaga. Ka saar maskaxdaada maalmihii madoobaa ee waqtigaaga hore. Kuwaasina kaama xirxiri karaan ilayska mustaqbalkaaga ifaya. Waqtigaaga hore wuu dhammaaday, isdhan. Wax walboo lagu geystay, hadday ahayd xaasidnimo, hadday ahayd cadaalad darro, arrin walbay ahaato, way dhammaadeen kuwaas. Haddii aad ku noolaato xasuusta wixii kugu dhacay, way kaa guulaysteen iyagu. Haddii aad noqoto dhibano u dhiban wixii ku dhacay, way kaa guulaysteen iyagu. Haddii aad doonayso inaad noloshaada guul ka gaarto, waa inaad u istaagtaa dhisidda mustaqbalkaaga. Waliba hadda bilow. Gebi ahaanba soo laab buuggii madoobaa ee waqtigaaga hore. Culayska kaa saaran dhabarka sii daa. Waqtigaaga hore la mid maahan mustaqbalkaaga. 100% waxaa qaalisan mustaqbalkaaga. Qodobka labaad, ha u ogolaanin naftaada inay xukumaan fikradaha dadka kale iyo xukunadooda. Jihada ay u socoto noloshaada. Baahida badan ee aad u qabto dadka kale waxay ula muuqato waxa aad samaynaysid iyo inay fikrad ka dhiibtaan. Taasina waxay kugu sababaysaa inaad ku safarto waddo hoose oo aadan doonayn inaad ku safarto. Inta aadan wax walba samayn ka hor, weydii, ku dheh naftaada, ma waxaan doonayaa inaan sameeyo waxaan? Maxaa yeelay aniga raba inaan sameeyo? Samey, qofna ha kala tashan aayaha noloshaada. Mise waxaad u samaynaysaa midaan si aad dadka kale farxad u geliso. Taasi waa xabsiga ugu weyn ee qofka bini'aadanka ah uu ku noolaado. Raaligelinta dadka kale waa mid noloshaada hoos u dhigayso. Waxaad ahayd mid dhashay adigoo ah qaas, unique. Taasina waa sabab xagga Alle ah. Waxaad ahayd mid doonaya inuu lugihiisa ku istaago si aad ugu maqsuudo qofka aad tahay. Sidoo kale waxaad ahayd mid jecel noloshiisa. Maxaa kugu dhacay hadda? Ma waxaad noqotay qof kale? Waa maya. Jismigu waa jismigaagii. Muuqaalku waa muuqaalkaagii. Kaliya waxaa meesha ka baxay awooddii kalsoonida. Ha quusinin iftiinka noloshaada. Waxa aad tahay qof baa kugu jecel. Ahow sida aad tahay. Ha yeelanin muuqaal uu leeyahay qof kale, fikrad uu leeyahay qof kale, socod uu leeyahay qof kale. La hadal noloshaada. Iyada ayaa kugu filan imtixaan. Weydii, yaan ahay anigu? Soo ma ihi Faarax? Haa. Soo ma ihi Faadumo? Haa. Soo maxay tahay qofka kale aan doonayo inaan noqdo? Intaad nolosha ku dhex jirto waxaad arkaysaa duruufyo fara badan. Yaysan kuu riixin duruufahaas meesha ay halistu ka jirto. Qodobka 3, ha u ogolaanin naftaada inay xadidaan waxa aad adigu personality ahaan u aaminsan tahay. Tusaale, dad baa aaminsan inuusan dhaafi karin nolosha halka uu maanta joogo. Wuxuu aaminsan yahay halkan inaysan waxba ka dambaynin. Sidoo kale dadka qaar ayaa aaminsan haddii ay gaaraan hadaf ay lahaayeen inaysan u gudbi karin hadaf kale ama aysan furi karin baal kale oo ka mid ah nolosha. Kuwaasina waxaa la dhahaa limitations, xadidyada nolosha. Hal meel in hadafka la saarto. Dadka dhagaysta waxa ay noloshooda ku dhahayso ma gaaraan marnaba riyada ay nolosha ka leeyihiin. U sheeg noloshaada waxay aaminsan tahay inay tahay waxba kama jiraan. Ku dheh anigu waxaan ahay unlimited, qof aan xadidnayn. Isbeddelka noloshaaduna waa marqaatiga mustaqbalkaaga. Ma jiro qof ka hor istaagi kara guushaada haddii aysan naftaadu xadidnayn. Haddii aad aaminsan tahay naftaada, aamin wax walba inay macquul yihiin, dhici karaanna waqti walba. Haddii aad u beddesho dabeecadahaaga xadidan midaan xadidnayn, awooddaadu waxay noqonaysaa midaan xadidnayn. Qodobka 4, ha u ogolaanin inuu noloshaada xukumo xiriirku soo maray.
dunidan waa silsilad maalin walba dadku waxay korayaan jaranjaro cusub maahan haddii uu qof noloshaada ka tegey inay noloshaada oo dhan dhulka gelayso wakhtiga aad wada qaadanaysaan qofkaas waxa uu ahaa mid qoran haddii aad mar walba u baahan tahay inaad la joogto qof kale si aad u noqoto mid faraxsan ogow waxaa imaan doonto maalin uu qofkaas ku macsalaameyn doono haddii uusan xidhiirkaas u sii socon si wanaagsan ma kugula talinayo inaad iska ilaaliso inaad samayso wax xidhiir ah ma jiro dunidan korkeeda wax ka awood badan jacaylka balse waxaan la hadlayaa waa dadka aan noolaan karin qof kale la'aantiisa xidhiirka aad la leedahay qofka waxa uu ku burburi karaa daqiiqad gudaheeda taasina waa sababta aan kuu dhahay ha u oggolaanin inay xukumaan naftaada xidhiiryo ku soo maray waa inaad noqotaa qofkii aad shalay ahayd daqiiqadda uu qofkaas kaa tago ha u gelinin qol mugdiya noloshaada qof kale daraaddiisa qodobka shanaad tani waa midda koontaroosho badanaa dadka ku nool koonkan ma qiyaasi kartaa waxa ay tahay iyadu taasi waa lacagta damani kuma dhahayi lacagtu way xun tahay ama waxay kugu hoggaaminaysaa lacagtu wadda xun lacagtu waa sida aad adigu u xukunto waxaad ku qaban kartaa waxyaalo xun sidoo kale waxaad ku qaban kartaa waxyaalo wanaagsan balse waxaan ku dhahayaa lacagtu yay hoggaamin dareenkaaga oo dhan ha ku dooranin qof lacagta uu haysto waayo maantaba way dhammaan kartaa ha uga tegin qof lacag la'aan waayo maantaba wuu heli karaa ujeeddadaada oo dhan yaysan noqon sidee ku helaan lacag haddii aad camalkeeda suubiso lacagtu ayada ayaa iska imaanayso haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qoray ha u raadinin lacag inaad ku soo jiidato qof kale u raadi inaad ku caawiso dadka danyarta ah noloshaadana aad ku qurxiso oo aad ku noolaato nolol iska dabiiciya gunaanadkii iyo gebagabadii beddel noloshaada si aad ugu noolaato nolosha aad doonayso kana xoree noloshaada shantan qodob ee aan soo sheegnay inay xadidaan noloshaada waxaan filayaa fideowgan inuu ahaa mid ku caawiyey halkan waa sahanwade waa goobta mooraalka iyo qisooyinka nolosha waxaan kugu soo dhoweynayaa inaad naga mid noqoto rukumo janaalkan sabskraibna dheh fideowgana like dheh kan waa walaalkiin Saka Cabdi Yaasiin